وكاك داوديل أدمو معسني هاي ورياهيغا عدروس بيرشيه وربحنتاسي إنو دياريي wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa gargaar gaarsiisay deegaanada Sabiid iyo Mareer ee gobolka Shabeellada Hoose wariyahayaga Cabdiwali Cali online ayaa warkaasi noo soo diray maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya iyo hay'adda IOM ayaa gaarsiiyay deegaanada Sabiid Canoole iyo Mareer alaab ka kooban noocyo kala duwan oo muhiim u ah qoysaska ku nool deegaanadan waxaan ka faa'iideystay boqolaal qoys kuwaas oo ku dhaqan deegaanadan Idris Maxamuud oo qayb ka ah howlgallada alaabtan bixinayay ayaa sharaxaya waxa ay ka kooban yihiin qalabyadan maanta la qaybiyay waxa uu gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najac uga mahad celiyay dadaalada kala duwan ee uu ku bixinayo in deeqa kala duwan la soo gaarsiiyo dadka ku nool Sabiid Mareer iyo Canoole waxaan qaybinay tuulada oo Sabiid iyo Canoole waxaan u qaybinay qalab oo ka koobanaa jiro 1500 qalabkaas oo ah saabuun iyo jeeg baldi weyn oo faradhax farxal lagu sameeyo iyo caaga jiro oo jirgaan oo biil lagu keedsado intaas ayaan u qaybinay marka Sabiid waxaan siinay 800 waxaan ugu soo gacmo furan ugu soo dhaweeyeen odayaasha Sabiid gaar ahaan waa ku mahadsanyihiin kulligood oo waa ku mahadsanyihiin barnaamijka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa hay'adda IOM iyo gudoomiyaha Shabeellaha Hoose guud Ibrahim Aadan Najac iyo wasaaradda caafimaadka guud ee koonfur galbeed marka aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin waana socon doontaa hawsha Mareerina waxaan keenay tuulada Mareer iyadana waxaan keenay 700 oo ka kooban Cabdiwali Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose سنة عدولي على أونلاين هيو داود الكاسي هاو قبل كاس شبيلة حوسة وربحين تاسين وقصو دياريال كان نقل سعوتانا هوا يونيفرسال تي في استوديوها أنو كلنا هاي مقالة هرقيسان